إلهي سبحانه وتعالى أسماء ديسا كل جد وأسماء وذون وناكسن وناجا هي كمال كان ماشى وقصر رئيس كجارت وحكم إذا أسماء إلهي الشافي إلهي إنه يهي عافية متكوح بوكسية أو عافية أو رئيسية أسماء إلهي أيك مديو إلهينا سبحانه وتعالى مقعيدي سوى اللغو بريا أو اللغو توصلا ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هادو غفق صواب وغضوح أورنشري مركو يمادو أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما دعاء ما يسترون بأسك كحه وشرد قاط رب الناس يا رب الناس ضدك ربي قولوا واشفي أنت الشافي إله عافي أديك أحمد وحافية لا شفاء إلا شفاؤك عافي ماد متشره إلا متك أدوك بحسد ماهاني اشفي شفاء لا يغادر السقم إله عافي عافي مات أن شر كدم بينين أو واحد شراء أن كتجهين إله عافي فالدعاء عظيم وآدي وين البلان نمبا الشلي يمد والشلي الصباح قلن كي هرو آخر ساعة عشان ساعة ميلاها ساحل nin saaxiibkiisaha maalin dhaweeyto qiso ku dhacday iiga sheekeeyay markaas waxaan ku yiri waxaan rabi lahaa asaga laftigiisa inaan ka wariyo oo aan arko ninkii baan la kulmay shalay waxaan weydiiyay qisadii aan saaxiibkiis ka maqlay sidee ahayd buu igu sheegay wuxuu yiri dibadaan joogay Canada habeenkii baan seexday anoo iska caafimaad qabo fiyow ilba idamtay dam hal ilbaan waxba ka arkay dhag bay tiri خلاص waa seexat wax yar ka bacdi tii kalena waa dantay labadii indhood dam bay noqdeen wiil yar oo dhagalaaba ii joogu yiri haweentuna shaqay aadaa telefoonku hadaa dhacay asaguna maqli ma hayo aniguna uma jeedo markaasaan xarunkan igu yimid dhaqaatiirtii baan aadnay wiil halkaan tag dhakhtar hebel u tag mid hebel u tag baaritaano degdeg ah la igu sameeyay oo kala duwan natiijadii waxay noqotay waxba laga ma qaban karo markii daba dhakhtarkii wuxuu yiri ugu dambeeyay laba mid weeye inaad wadatid ay ku hogaamiya oo aygu aad ka haysatid aygaas aad gadatid iyo inaad u shaan dheer oo la qaadatid dadka indhaha la qaataan labadaas mid uu yeel waqti kala iska lumin anoo xaaladii labadii midna aan samayn oo gurigii jooga ayaa magaalada Canada waxa yimid nin wadaada adeerkay baa u tago arintii u sheegay keen buu yiri markii la igeeyay wuxuu yiri waxaan musiibo kugu dhacday weeye ku sabar ducadaana waa ibaray buu yiri adhib al-ba's rabb an-nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqam habeenkii baan soo kacaa salaatul layl baan u soo kacaa salliga aan haysto dhinaca qiblada u jeeda saacad yar oo ku dul dhigama saa u taabtaa oo iska tukadaa ducadaana ilaahay baan ku baryaa oo ku tuuba saddex bilood muddo intaas la eg markaan indha la'aan ahaa waxaan arkayaan aan la arag ayaan habeenkii dambe salaatul layl tukaday ducadii ku ducaystay waan seexday salligii laftigiisii baan isku tuuray salaadii subaxiga oo aan la gaarin subaxigii markii la gaaray baa haweentii intay soo dul istaagtay ikicisay
haddaan saas madaxa u soo qaaday labadii indhoodbaba waa siday beri hore ahaan jireenba allahu akbar allahu akbar waa siday beri hore ahaan jireen markaas ay ugu dambeysay shalay oo aan arkay laga bilaabo waagaas ilaa hadda indhahayga wax yar wax weyn midna kama dareemin shalay oo aan arkay wuxuu waxba kama dareemin wax xun wax oo indha la'aana maantaas ilaa yoomina hada wax yar wax weyn wax iga maqan maayo qofka muuminka ah markii dhibaatadu ay ku dhacdo waxa la rabaa qalbigiisu markiiba inuunan u jeesanin dhakhtar hebel isbitaal hebel kaasaa takhasus gooniya haysta kaasaa fa unsa fiiri ha la yimaado asbaabtu ha aado laakiin qalbigiisu markiiba si toos ah inuu ugu xirmo khaaliqul asbaab ilaaha keenay jiradan inuu ku xirmo ilaahay wuxuu leeyahay wa in yamsaska allahu bidurrin falaa kaashifa lahu ilaa hu haddii ilaahay dhib kugu taabto wax kaa kashfin karo kaa qaadi kara male ilaa isaga mooyaane isaga keenay un baa qaadi kara wa in yamsaska bikhayrin fahuwa calaa kulli shayin qadiir haddii ilaahay khayr kugu asiibo kugu taabtana waxaad ogaanaysaa ilaahay wax kasta inuu awoodo ismigan ashaafi ah aahaarta ka dhalanaysa rumaynta la rumeeyo waxaa ka mid ah inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u rumaysid oo ogaatid asagoo inuu jirada kaa qaadi karo dhib oo dhanna kaa qaadi karo ayaa ka mid labaad waxaa ka mid ah inaad ogaatid ilaahay jiro ma soo dejin ilaa waxaa ilaahay u soo dejiyey caafimaadkeeda waa ka nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa anzala allahu daa'an ilaa anzala lahu shifaa'a ilaahay jiro ma soo dejin ilaa ilaahay wuxuu u soo dejiyey caafimaadkiibaa ilaahay keenay oo yaalla dadkii qaar badan baan garanahayn jiradaan jirra heble la yidhaahdo dhakhaatiirta markay baaraan waxay leeyihiin kaalmo yar bay leedahay laakiin wax dawo ah oo dabar goynahaya lama hayo waa ayaga aqoontooda gaaban intay la egtaago laakiin dawadii way taallaa ilaahay waa soo dejiyey wayna taallaa markaasaa intaas oo sano waxaa lagu hayaa bashariyaddaas horumar kasta oo la gaaray gaal iyo muslim caafimaadka si kastoo horumar kastaoo laga gaaray intaasoo cudur baa waxaa la leeyahay dawo ma leh halkaanay ku joogaan didaalkoodii iyo aqoontoodii meel baa lagu joojiyey jiradaas dawadeedina way taallaa ilaahay baa u soo dejiyey subxaana way taallaa laakiin dadkii baan garan hadhowtaa qof fahmaya oo qof garanaya qofkaas markuu ku baraarugo ayaa dad badan ilaahay sabab uga dhigaya asbaabaha cilaajka lagu raadiyo oo sharcigu uu sheegay inay dawo yihiin u fiirso waxyaalana tajrubo iyo didaal iyo waxyaalo la barbaaray baa lagu ogaaday oo wax bani aadamku ay ku ogaadeen baaritaan waxyaalana waxyigaa sheegay waxaa ugu horreeya adducaa tuugmada iyo baryaha ilaahay la baryo ayaa kow ah ilaahay muxuu leeyahay isagaa jirada soo dejiyey waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan addoommadaydu hadday kaa weydiiyaan waan u dhowaa midka ay baryahayana baryihiisa waan aqbalaya walidaalika nebigeenna sala allahu calayhi wasalam ducadan cadiimka ah oo uu inoo sheegay waxa weeyaan haddii maraydka lagu akhriyo ilaahay uu raysanahayo markiiba wuxuu nebigu yidhi man caada mariidan lam yaxdur ajaluh qofkii soo booqdaa qof jiran oo geeridii aysan ku soo xaadirin jiradaan u dhiman mahayo looguma talagelin u dhinto qof jiran baa soo booqotay oo aysan geeridii ku soo xaadirin faqaama cindahu 7 maraat faqaala cindahu 7 maraat 7 jeer agtiisa intuu fariistay yidhaahda as'alu allaha alcadiim رب العرش العظيم أن يشفيك كلمات قابون أسأل الله العظيم إله وين وحن سؤالنا إياه رب العرش العظيم عرش وين ربي جيس وحن سؤالنا إياه
أن يشفيك إنك عافيه تضبط شيء بكو علس حديثك لو وحو تلمام يا جعنت مدقت آيات كتب فيسا كل ما صحيسا دعاء مركا كو آخرين سوى كل ما صحيسا جعنت مدقت كتب كنا مصح حديث سميس النبي يقول محيري إلا عافاه الله من ذلك المرض إلهي وكعافية تردا يضعه إلهي وكقاضي لكن قلبك حاضر مياه مركا إلهي الدعاء كبر يسد أو مريض كتيران ود عين يسد قلبك حاضر مياه سواء مغير إنه قلبك حاضر يهي بالرباع وقلبك الدعاء كسر ضوضه أسبابها إلهي عافمات كأنه قد لقي وإنه يلا وحاكم إذا القرآن قرآن كوضتك لقو آخرين منعها إلا على الوقات وجر الوقات ما وحان ميلها انت الله فرتي لمبر لقو شرها ايو $100 لغا قاضا يقفك مكرفون وين دقاها الله سارها ايو شياطين با لغا لدقا لما يالليه ganacsiga laga dhigtay maya ha aadi waqtiga iskaga lumin dadkii intay tageen ba ayagoo jira labaad qaba ayay ka soo laabteen ba kuwii caafimaadka loo geeyay oo qofka jiran waday ayaga laftigooda soo wada dhacayba oo wada jiradaba waxayba noqoto meel cudurrada lagu faafiyo oo jinka lagu faafiyo oo balaadada lagu faafiyo oo dhibaatada dhanba ay ka timaado meelahaas noocaas loo furtay ikhlaas يداعد نمو آد بأوقفقيهن إلا من رحم ربي آد بأوقفقيهن هآدي قرآن كان قفك كو أخري آتقاند وحنها ويديسن إلهي درتو أخري أذوقنا هدا تقاند فاتحدا هي السورة الله وسوح قرآن كلا آذن أقوانين اسكو أخري حاسكاغا كو أخري المهاغا كو أخري قريقاغا كو أخري قرآن كان وادو إلهي بان الشيء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وعافما قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء دواويه إلهي حقيقي إلهي نوشيغي وأن شكي يركوشري وكلام الله إلهي كلام كسيوي أكتا دويناه كلها انت بدنا ضدك وكور وريغان مركا هوري marka isbitaalada soo maraan oo meelo badan soo maraan oo soo daalaan ayaa la yiraahdaa wadaadaha loogu yeero quraac loo sameeyo ha ku tufeen marka waxa laga dhigay waxa la isku daweeyay waxa ugu dambeeya laga dhigay niyaduna maba ahaba in waxa weeyaan markaas lagu akhrinayo laftigeeda qofkii wuxuu u hanqal taagayaa bal igu tufa meelo kale isbitaalo kale rag baan dirsado meelaha la igu maqaya bal iska kay tuf inuu asagu ka bilowdo caafimaadku kuna dhamaado kalaamullaahi uu yahay اعتقاد كاس أيام نغير مركزان عافمات كي أنكر رادين أن هلم هوين أيبا سعودي ويل كيدو وحو قلي حادث شيل بابور بو قلي اسبتال بو قلي كوما أيو قلي دخاتيرتي وحيا رجوين ماله أفر بلاد كوما دا أيو كتشري هل مرنا مسو ميرسن اسبتالكو اسكي يالا هويدي baa la soo fariisatay mushafka ay keenatay kitaabka quraanka ah ay qabsataa way ku bilowdaa way ku dhamaysaa way ku bilowdaa way ku dhamaysaa way ku bilowdaa way ku dhamaysaa iska ag fadhida maanta dambo idii kala qaaday waa fiicnaaday dib dambe waayad dambe oo dhan ma zaala hayyan yurzaq asagoo caafimaad qaba reerihiisa dhaqanahaya ilaahi waa caafi ilaahi subhanahu wa ta'ala waa ku caafi حتى إلهي وحو كوغو سخيريا أسبابك له وإلهي كوغو تلقى هدي تشيران قرآنك وحول بكاور مري أسقى إلهي أسبابها كلا لفتي كده كوغو سهلة حيالها عافماتك إلهي نوغد لغي وحا كمدا ملبك هادو ملب صحي هي وادو إلهي سبحانه وتعالى وإنه الشيء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وعكمد الحبة السوداء نبي يري صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام حبة السوداء عذر أن دوي أطهي جيريدا مركا لغا ريو waxay culimada qaar kood kutubahoda ku qoreen tusaale
ay ka soo guuriyeen dad badan oo ahlu cilmi ah cudurkan sarataanka la yaa kansarka ah oo khatarta ah oo aada la yadawo male qofka marka lagu arka la leeyahay kaalmaati u baa la iska kaasiinaya dad badan oo cudurkaasi ku dhacay دكتور أمين عبد الله كتاب كيس أيو كقرن ضد بدن عذر كان كل عيبان أركيبوي أو كرئيس وحي يسكت درين حبة السوداء هي ملبك حوجا كيلو جيدان أو كدر درين إلهي بقول ثلاث صارته وأنا إسك استعماله عذر ردي دقاتير تو أيران وحدة وأمله أيجو كرئيس تي أو بدن بان أركيبوي وحو يري الشيخ لفتجيسو كعبلا رجع معمول حرمك سؤال أن ويديه وحا كمد أها كور رمضات جرن أو لقى قوستي دودو أو يمد حرمك إلهي كو عافية ما عرفتين ترسي ما لها يلاقي ضد كنت دقاتير تلا واحد دواء ملي هدين أنت إسكا صوت تجاه أو حرمك صوت جلان أو حبة السوداء إسكا استعمالا يا ملبك زمزم كان عبين إلهي بريان إلهي كو عافية أو أن أرجنا ترسي ما لبيه markii dhaqaatiirtii laga soo qoostay baa masjidka Ilaahay la iska yimid Ilaahay baa la toogay subhanahu wa ta'ala waxa kamida biyaha zamzamka wixii loo cabaana lagu helaa wuxuuna ahaa Abdullah ibn Abbas wuxuu ku ducaysan jiray Allahumma inni as'aluka markuu cabahayo Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da Ilaahu ilmi wasi' ilmi nafi'a iyo rizqi wasi'a iyo caafimaad cudur oo dhan aan kaga raysto ayaan ku weydiistay saas Ilaahay ugu bari jiray subhanahu wa ta'ala inta markaa heshid oo Ilaahay ku waafajiyo waxa muhiim ah in qalbigaagu Ilaahay ku xirnaado oo marna uusan ku xirnaanin dadkan aqoontooda gaaban iyo waxaan la isku dardaray oo bani aadamku ay tajrubada ku gaareen oo ay leeyihiin waa dawada noocaas weeye waxaasi waxa weeyaan in aadan ku xirin qalbigaaga ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xirto asalna waxa qofka mu'minka ah inuu yahay qof arrimihiisa Ilaahay u bandhiga subhanahu wa ta'ala intaada makhluuq u bandhigan Ilaahay u bandhigo waa inaad lahaataa umuurahaaga Ilaahay inaad u bandhigatid ana uleelka soo kac Ilaahay tuug baryaha ku celceli Ilaahay subhanahu wa ta'ala faraj degdega Ilaahay ku furahay haddii inta Ilaahay bariday oo Quraan isku akhrisay cilaajkii iyo caafimaadkii uu ka soo daaho ha u arkin inaan waxba laga aqbalin Ilaahay inuu ku dibdhigahayo oo xikmad ka leeyahay baa dhici karta maxay tahay nabiyullaahi ayyub Ilaahay waa jeclaa nabi Ilaahay buuna ahaa jiradii 18 sano yaal oo jirana ahalkiisi baabeen awlaadii laga qaaday maalkii laga qaaday badankiisina u jiray وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أي إلهي كتوك سبحانه وتعالى إلهي بونوا إله نباتا إتابتي نبا إتابتي أذوقنا وحاته أرحم الراحمين أنت النحريسته بتكون نحريس بالله إله النحريس مرقا ساعة عافي ما دق لسي مالكي هي أهلكي ولا بتشبارنا لو سعلي ولا سي أنت أصلا إلهي امتحانا سيقال قفيرنا إلهي وحو أدبنيك كرا إن لغوغو تلقى قيامها درجات سرع وهذا فيلها إن لغوغو سيو إن لغوغو سيو درجات سرع وهذا فيلها إلهي دنبقاك كوغو نعفو جرداكو هاي سدرات وكان النبي يري صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة dadkii adduunyada caafimaadka haystay waxay jeclaanaha hayaan qiyaamaha xiina yu'ta ahlu albalaa'i thawaab markay arkaan dadkii adduunyada ku jirana oo dhibaatadu ku haysay thawaabka iyo xasanaadka la siinayo weyninkiisa markay arkaan waxay jeclaanayaan law anna juludahum kanat fi ad-dunya quridat bil maqarid haday adduunyada markay joogeen inta jira lagu salido xibnahooda maqas lagu googoyn lahaa oo cadcad loo jarjari lahaa oo ay ku sabraan oo maanta xasanaadka la siinahayo dadkii adduunyada ku sabra ayagana la siin lahaa ayay tamaninayaan oo jeclaanayaan wayna marka taas ogaataa in Ilaahay kuugu tala galay dhibaato maanta ku haysa
oo lagu dib dhigay inay maalinta qiyaamaha dadka ahlu caafiyada ay ku tamaniyaan sida adigu maanta aad u tamaninaysid hebel waa ka luga fiican yahay hebel waa ka caafimaad badan yahay ilaahay hadduu caafimaadkaas ku siin lahaa lugihiisa kale haddii ilaahay ku siin lahaa ayaa tamaninaysaa laakiin ilaahay wuxuu kuugu talagalay khalaa'iqdoo dhan inay tamaniyaan alla adduunyada markaan joogna haddii dhibaatada hebel ku dhacdo kale lagu dhici lahay xikmad badan baa ilaahay ka leeyahay subxaanahu wa tacaala marna naxariista ilaahay ha ka quusan اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى